بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. maanta waa jimce, waa 23 Ramadaan. xalaytana waxay ahayd ayaamaha la filayay laylatulqadarka, maalintii labaad 21 iyo 23. waxay noo haray 25, 27, 29. inkastoo muhiim tahay in 10 habeen u dambeeyaba Ramadaanta la fisho oo la ducaysto oo khayrka la bixiyo. Somaliland dhibaato badan baa ka taagan. dhibaatada ka taagan waxaan u baahanahay inaynu si niyada isugu ducayno, qaranka u ducayno, in Ilaahay subxaanahu wa tacaala madaxda xaqa tuso, inuu Ilaahay inoo dooro dad mas-uuliina oo cadaalad iyo sharci iyo xaq iyo wanaag inugu maamula. ayaan Ilaahay ka baryaynaa inaynu dhammaanteen isa saamaxno, in laysu dulqaato, in nabadu tahay waxa ugu weyn ee bini'aadamku uu ku nool yahay, ee muhiima, oo nabada meel ayna jirin xataa cibaadadu ay adkaanayso. waxaynu u baahannahay in laysu saamaxo, in laysu duceeyo, madaxda loo duceeyo, lagana tashado wixii wanaag la wada leeyahay la wada tashado, oo laabta laysu furo, oo insha allahu tacaala bidmillaahi alkariim dad wada dhashay oo walaala ah oo waxba ku kala duwanayn baynu nahay. Soomaali oo dhan baa waxba ku kala duwanayn. marka dadka islaamka ah in had iyo jeer la yeesho dulqaadkeeda, oo meel kastoo ay dhibaato ka dhacdo dadku ay noqdaan dad u gurmada oo xagga wanaagga ka eega, laakiin aan hiil iyo tacasub iyo abtirsiin iyo qabyaaladan xun ee abtirsiinta ah ee had iyo jeer meel la isku taagtaa jirin, ee marka xumaantuun la samaynayo reerku uu xumaantuun ku yahay reer. marka inta baahan ee reerka aan cidina wax taraynin, inta ma garanaysaa dhibaataysan ee caafimaadka u jiiftaan cidina siyaaranaynin, ay tahay wanaaggeeduun tallaaya iyo budka marka la qaadanayo intaa lagu bedelo qarannimo, oo dadku intii meel wada joogtaa ay dalka wada leedahay, oo wanaagga wada leedahay, oon qofna gaar u lahayn, qofna gaar looga lahayn. arrintaasi in lagu eego had iyo jeer qarannimo iyo wanaag lagu eego. qabyaalad meel alla meel ay ku geynaysaa ma jirto, if iyo aakhira midna waxba kaa tari mayso. tacasub wax ka xumi ma jiro. waxaad la coloobisaa saaxiibkaagii aad wada qorteen, waxaad la coloobisaa abtiga, wuxuu kugu darayaa awowga, wuxuu kugu darayaa habaryarta, wuxuu kugu darayaa inaabtiga, wuxuu kugu darayaa ciidada, wuxuu kugu darayaa dadkii aad weligeed ba taqaanay ee ciishow milixda ahaydeen buu kugu dirayaa, uu kaaga dhigayaa cid kale inay yihiin. maxaasaa qabyaalada ayaa ina dishay, qabyaaladaas ayaa ina dishay. qarannimo lama helayo inta qabyaalada jirto. war qabyaaladu waxay tahay kaliya in laysku garto oo maxaan ku idhahda waxaad adigu gaarka u leedahay qaraabadaada iyo ehelkaaga inaad garato waa xaqiiq weeye, waa waajib. laakiin wixii qaranku leeyahay ummad baa leh, waa inaga dhexeeya. cid gaale male, qabiil male, jilib male, reer male, qoys male, qarankaa leh. waxaa qaranka ah waa inaynu isinaanaa, taasi baynu ku midoobeynaa, taasaynu isku saamaxaynaa. ilaahay xaqa hayna tuso, ilaahay hayna waafajiyo habeenka laylatulqadarka. ha laysu wada duceeyo, oo ha la ducaysto, oo sadaqada ha la baxsho, oo masaakiinta ha loo naxo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.